hilaac sidoo kale loo yaqaano biriq waa maaso aad u weyn oo ka dhacda inta u dhaxaysa cirka iyo dhulka ama badda. iftiinka biriqda waxaa la dhahaa hilaac, dhawaaqeedana waxaa la dhahaa gugac. biriqda waxay ku dhex socotaa hawada sida isla markaana waxay samaysaa maasooyin kala duwan, waxayna molekiyulada hawada u bedeshaa ayoon, isla markaasna waxay samaysataa jid maasada dhex marto. intii ay jidkaasi dhex marayso waxay molekiyulada hawada u bedeshaa plasma. jidkaasi ee biriqdu dhex maraysa kulkeedu waxaa lagu qiyaasaa 15,000 digrii centigrade ilaa 3,000 digrii centigrade, waxayna 5 jeer ka kuleel badan tahay qoraxda. waxaa cirka lagu arkaa marka roobka da'ayo ama markii jawigu uu aad u xun yahay, sida markii jiraan duufaano roob wata, marka kale oo u dhaxayso vulkaanada hawada gasho, xataa markii geedo gubtaan oo qaacooda hawada galo waxaa ka dhalanayso biriq. ibnu cabbaas radiyallahu canhu wuxuu yidhi nabiga waxa uu yidhi gugucu waa malaa'igta alle mid ka mid ah kaasoo ah deb una hogaamiyo daruurta meel alle meeshuu alla uu doono. haddaba ducada biriqa iyo gugaca, nabiga waxa uu yidhi allaahumma innii as'aluka khayrahaa وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. taasoo micnaheeduna uu yahay allahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkiisa iyo khayrka ku sugan iyo khayrka lagu soo diray, waxaana kaa magan galayaa shartiisa iyo sharta ku sugan iyo sharta loogu soo diray. allahayow hanugu dili caradaada, hana noogu halaagin cadaabtaada, caafi intaa ka hor allahayowna caafi intaa ka hor. xadiiska oo u dhacaya sida taa ducadaas ayaana ku duceysanaynaa xiliga aan aragno gugaca iyo biriqa. intaa waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. aad baad u mahadsantihiin. ramadaan dhammaad wanaagsan. wabilaahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله.